teknolojiyadda aanu sii korino oo ujeeddada hadafkaas loo aasaasay xaruntan ay ka mid tahay idinkuna aad noqonaysaan qaybtii labaad ee iminka ka qalin jebisa iyadoo idinka horreeyeen hablo iyaguna si gaara uga socday wasaaradaha kala duwan ee dalka waxaa kaloo jira iyaguna qaybo kale oo fara badan oo iminka socda oo ciidan ka mid yahay baahiyaha dadka gaar kaliya ay ka mid yihiin oo iyagana insha allah aan rajaynayno inay dhowaan usoo gabagaboobaan ka wasaarad ahaan waxa mar kasta aanu juhdiga saaraynaa ama aanu ku dadaalaynaa inaanu magaca innovationka ee aanu kusoo kordhinay inaanu sii horumarino oo aan wixii aanu annaga kalaankayaga dadaalkayaga aanu kasii qaban karno aanu sii qabanno idinkana waxaan idinka rajaynaynaa in magacii iyo tababarkii aad halkan ka qaadateen inaad wax badan idinka anfici doonaan idinkuna aad sii wadi doontaan dadaalkiina ood soo noqon doontaan tababaro kale waanu samayn doonaa qaar jaamacadaha loo qaban doono iyo ardayda gaarkaaba qaar wasaaradaha loo qaban doono iyo kuwo kale oo kala duwanba insha allah uu ku jiraa balaanka qorshaha xarunta halabuurka inaanu qabano runtii waxaan rajaynayaa inaad cilmiga aad barateen ilaahay idinku anfaco oon idinku hambaliyeeyo oo idinku soo dhoweeyo in badan waxaan u malaynayaa teknolojiyadda dee waayo badan iyo waqtiyo badan oo kala duwan bay soo martay maanta alxamdulilah waxaan joognaa waqti teknolojiyadeed xilligan aynu joogno waayo waxaa jirta waqtiyada ka mida oo combyutarkuba dadka dee la yaab laha oo arday aan nahay yarar oo combyutar marka dhaalka combyutar baa lagu dhigaa dee wax weyn aan u naqaanay waqtigu isbedelay maanta oo dunida teknolojiyad baynu joognaa global yar bay ku wada jirtaa cilmiga halkan aad ka barateen in badan oo kale ayaad baari kartaan waad sii kordhin kartaan oo idinkaasa sii bari kara oo self study sii samayn kara idinkaa sii kordhin karaa aqoontiina runtiina waxaan rajaynayaa inaad halkaa kasii wadaan waan idiin hambaliyeynayaa waxaan idinku hambaliyeynayaa insha allah inaad guul kasii gaadhaan insha allah halkaad sii wadaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.